بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صباح wanaagsan saaka waxaan ka hadlayaa wax shalay ummadoodan ka fajiciyay oo hadaan Soomaaliland nahay aan la yaabnay ninka safiirka ee Djibouti u fadhiya safir ku sheega oo gudoomiyihii ruuxiga ahaa ee Soomaaliland Faysal Al-Waraab waxa ka sheegay oo yiri Hargeysa ku dilayna waan ku falayna hadii laga ka qaban waayo taasana naga yaabsay. waxaan leenahay Djibouti annagu Faysal waxa uu sheegay waan la soconnaa waa runtii Djibouti waa cadawga koobaad waxa weeyaan hiil walaal bay ula baxeen Muqdisho wax laalahay noo qabtaan ma jirto baasaboor iyo macwiis way nagu xukumi jireen labadiina waanu tuuray hadii ninkan maanta madaxweynaha ay inta qadarinayo seedinimo u qadarinayo isaga jirtaa iyo baasaboorkiisa isaga jirtaa laakiin waxa leeyahay dawladda Soomaaliland hadaa naf leeyihiin oo inuu dhigun ku jiro oo inuu wax kala qaadanaysan ninka safiirkii 24 saacadood wadanka ku gaadhin hadii kale waxba laga qabanaya baada ogaada waxba laga qabanaya ninkaas hanjabaadu soo Faysal hanjabay Faysal Hargeysa jooga oo ku dhashay jid ku dhashay oo degan hanjabaadu hanjabay waxa laga qabanaya waxa laga qaban doono waxba laga qaban doono ninka 24 saacadood ta kale waxa la yaab leh TV qaranka laga soo daayay war meelka dawladdu ma la jirin marka ma la jirin oo aan la jirin xididnimada tiina ina geelo ku sameeyay baan ogeyn oo soo boobay ee la soo tuuray ayaan ogeynaan iska liqnay Djibouti waxa ku 200 daqiiqo ku filan 200 daqiiqo ayaa ku filan waxba iska cilmayaan Faransiiskuna uu iskaga tagay waa magaalada yar qura waxaan leenahay Djibouti waxayna ka doonmayna naga baxa ordo hiil walaal doonta Soomaali weyn iyo kuwa ayaa wax siisan doonta jawaasi iyo macwiis lagu xukumay meesaan nadaayban leen madaxweynaha taan siinaya haddii wax ka qaban weydid oo ninka wax ka qaban weydid laba waxyaabood baa loo qaadanaya nin baasaboorka ilaashanaya iyo nin xididnimadu jiidanayso labadaas uma lagu qaadanayo waana dhab haddii uu 24 hours ka bax